wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Maxamed Muuse Diiri ayaa isagoo dareensan ahmiyadda ay leedahay ballaarinta qorshayaasha lagu horumarinayo wakaaladaha biyaha iyo bulshada ayaa maanta waxa uu kulan wada shaqeyneed la qaatay shaqaalaha iyo maamulayaasha wakaaladaha gobolka Gabiley. wasiirka ayaa warbixin ka dhageystay maamulayaasha wakaaladaha gobolka kuwaas oo uga warbixiyay qorshayaasha wakaaladaha ay hoggaanka u yihiin. sidoo kale waxa wasiirka socdaalkani ku wehelinayay agaasimaha waaxda biyo fidinta ee wasaaradda biyaha Somaliland. kulankani ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa qorshayaasha ay wasaaradda biyuhu ku horumarinayso wakaaladaha iyo sidii ay bulshada gobolka Gabiley loo gaarsiin lahaa biyo ku filan oo nadiif ah. kulankani markii uu soo idlaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay maareeyaha wakaaladaha gobolka Gabiley oo ka warbixiyay kulankani iyo waxa uu daaranaa. mudane wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolka Gabiley waa gobolkaagii waa gobolkii cagaarnaa waxaan ku leenahay ku soo dhawow haddaan warbixin yar oo kooban ku siiyo biyaha gobolka Gabiley aan ka siiyo mudane wakaaladda biyaha Arabsiyo si fiican bay u shaqaynaysaa hal ceel baa ka shaqaynaya oo ka jira halka ceel biyihiisu waa biyo macaan oo wanaagsan haddana waxa loo qoday ceel cusub oo socda oo wali aan dhamaystirnayn magaalada Arabsiyo waxaan rajaynaynaa inay beri dhow heli doonto biyo ku filan oo ka haqabeesho marka ceelka kalena hawl galo. wakaaladda biyaha Gabiley iminka waxay u maraysaa waqtigii ugu wanaagsan run ahaantii markaad eegto intii ay la wareegtay wasaaradda biyuhu heerkii ugu fiicnaa bay maraysaa waayo waxaan maraynaa oo hadda foodayn lagu soo hayaa waa kaliishii baahida biyuhu ugu badneed bay maraynaa. biyaha aan magaalada siinaa waa biyo ku filan oo ka badbadan waliba waxaan hataa u diyaar garownay inaanu biyo ku filan siino miyiga iyo dhulka ku xeeran haday noqoto xoolaha iyo haday dadweynaha noqotaba waxa weyn diyaar garow badan baanu haynaa oo aanu sanadka ugu tala galnay oo waxaan isleenahay biyihiinu way ka badan yihiin siday sanadihii hore ahaayeen. wakaalada biyaha Wajaale waxay maraysaa meel wanaagsan bay maraysaa iyaduna mashruuca Wajaale biyuhu soo bilaabmay 2014 soo bilaabmay ilaa hadda meel wanaagsan buu maraya bator baa looga qaaday sidaas oo 26 kiiloomitir ay ku tageen biyaha Wajaale mashruuca horreyn markii horeysa waxa lagu dhameystiray 26 kaas beeb la dhigay iyo kayd biyood muggiisu yahay 500 mitir waxaan hadii la bedelo wax noqon kara 2500 foosto waxa kaloo mashruuca kow ka ahaa 5 kios oo markii u horeysay la sameeyay si dadka dan yartii ay ugu xaqabaan oo biyo loogu siiyo waa laga gudbay inta mashruuc hadda wuxuu marayaa in xafiisyadii wakaalada la dhisay oo 3 xafiis la dhameystiray iyo 4 kiis oo lagu biiriyay wax oo hadda socda shaqadooda ay socoto waxa kale oo socda iskuulada oo biyo loo geliyay oo ay hay'adda UNICEF ay wado runtii Wajaale waxaan isleeyahay maanta meel fiican bay biyaheedu marayaan waayo waxa biyo gelin ku sameeynay 200 oo guri ba hadda biyo gelintu maraysa oo connectionka guriyaha la geliyay waa markii ugu horeysay ee ay Wajaale hesho biyo noocaas ah oo ay 2 saacad runtii ay ku meelato. intaasi kadib waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Maxamed Muuse Diiri waxana uu yiri mahadsantiin runtii soo dhaweynta kama maqnay dalka oo waan joogay bari ilaa galbeedna wasaaradda doontaa haatee waxa ka socda waa la socday ninka cusub meesha qarankan ku cusub shaqooyinka ka socda ku cusub weeyii aad iyo aad baad ugu mahadsantiin hawlaha meesha ka qabateen iyo inta ay socoteen hal qodob ma idin sheegayaa oo waxaan gacanta ku haynaa waa biyuhuna waa noloshii dadka inaynu sida ugu wanaagsan ugu haboon ugu maamulo oo u socodsiino hawshooda maalinlaha ayaa laynooga baahan yahay in muxuu ahaa wada shaqayn buuxda shaqaalaha gobolka yeesho ayaa loo baahan yahay kulley dhawaan baa maamulka la dhisay inaanu structure-ka iyo qaabka u shaqeynayaan nidaamkooda hoos u eegno waa loo baahan yahay waa isku dayi doonaa haddii la yidhaahdo warbixintana kulley agaasimayaashayduna dee warbay ka hayaan wixii hoosa annaguna waxaa ka dhiman ceelashaa ka dhiman iyo biyogelintaa ka dhiman waanu ku dadaali doonaa weliba sida ugu dhaqsaha badan inaanu wax uga qabanno aad iyo aad baad mahadsantihiin waa idinku boorinayaa hawsha aynu qaranka u hayno inaynu sideeda uga soo baxno cid walba uga soo baxdo waxaa idiin harsan Gabiley la 3 degmo kale waa geed ballaadh waa lay baday
iyo agabar afrikaygaani maanta halka jooga isu iman doonaa waa isu qeylada dhaansan doonaa waa isugu iman doonaa sidii aynu hawshaasi isu qabsin lahay ee meelahaasina biyo ku habboon manaafacaadsan karaa dad iyo xoolaba looga gaari lahaa wixii ay jiraanna si wanaagsan sidii loogu maamuli lahaa ayaynu u samayn doonaa haddii waa maxamed cabdi cumar maxamed wadin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.